isku soo noqod wacan aynu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa iskarantilay kadib markii uu la kulmay xildhibaan u geeriyooday caabuqa coronavirus. Madaxweyne Waare oo xaqiijiyay inuu iskarantilay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si rasmi ah u shaaciyay in uu muddo 7 ah uu ku jiro karantiin la xiriira cudurka COVID-19. warqoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku yiri ilaahay baan xanuunsan balse okay ayaan ahay toddobaadkii tagay ayaan doortay inaan iskarantiilo ayadoo ay iga tahay taxaddar iyo inaan tusaale u noqdo dadkayga waan sii wadi doonaa inaan sidaan sameeyo si la mid ah dadka Soomaaliya ayaa waxa ku sii kordhaya cudurka dilaaga ee COVID-19 iyadoo ilaa haatan 9 ruux laga diiwaan geliyay in maalin qura ay ugu geeriyoodeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale uu u geeriyooday mas'uulkii ugu horeeyay ee ka tirsanaa maamul goboleedka Hirshabelle.